wafdi uu gaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dir ka mid ahaayeen taliyaha qaybta booliiska gobolka Sool Ibrahim Jamacdaad iyo taliyaha ciidanka militariga qaybta 11aad ee Somaliland ayaa maanta gaaray ceelka deegaanka Yaheel oo khilaaf beeleed ka jirtay maalmihii u dambeeyay ceelkaasi waxaana maanta gudoomiyaha gobolka Sool iyo wafdidiisani ay maanta soo kala qaadeen ciidan beeleedii halkaasi joogay wafdidan uu gaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dir ayaa intaasi kadib kulamo iyo shirar la qaatay odayaasha wax garadka deegaanada xilxidhiyo dhumay kulamadaasi ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda nabadgelyo ee deegaanadaasi iyo labada beelood ee colaadu ku dhaxmartay koonfurta gobolka Sool shirkaasi kadib gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dir ayaa halkaasi kaga dhawaaqay afar qodob oo islaaf garteen kana soo saareen shirkii ay wada yeesheen noqdo ama kala ka dhaay ha noqdo ama kaanu dadku kula hadli doono dhumay ha noqdee afar qodob baa ka soo baxay afarta qodob nin waliba ogow afarta qodob ee shirka ka soo baxay nin waliba meel ku qoro waxa ka soo baxay kow Yaheel inay tameel ciidan ka caagin Yaheel inay tameel ciidan ka caagin ciidanka lagu arko in la dagaalamayo ogaada taa kooway qodob kale waxa ka soo baxay in odayaashiina halkan fadhiya ciidanka la shaqeysaan oo ballan qaadeen oo cid bilowda ay sheegtaan kana garamaayo in hebel garamaayo laakiin marka idinku sheegtaan waajib bay ku noqonaysaa inuu qabto qodobka saddexaad waxaan ku heshiin ciidanku hubka ay qabtaan inaad tiraadeen cilis ma leh hadhow ayaa la saga dayman qodobkaas faa waxaan ku heshiin dhumay iyo xilxilnay wada hadal yeeshaan hadii la yiraahdo odayaashooda waa qoriga fidno wadan ka hadlaya waa qoriga fidno wada ee fidno lagu qabtaan sheegaya waa qoriga fidno wada ee fidno lagu qabtaan sheegaya kowrida inaad yeelan doontaan kulan joogta waxaan ku yeesha taa intaas ka soo baxay anagu waxa aan dhalin leenahay waa qaadanana laakiin waxaad idinkuna naga saacidaan oo ciidan ka saacidaan oo laamaha amniga ka saacidaan bal marka aan qaban weynay inaad sheegtaan dadka fidnada wada taa war hebel baa fidno wada halkaas ninka lagu arka halkaas uu gaado ku ahaa waxaan qabaa ninka bahar sabay ee ninka qayaadeed dilaa ninka bahar sabay ninka qayaadeed dilaa nin bahar sabay budeenu si qaata ninka bahar sabay budeenu si qaata ka qayaadeed nin bahar sabay dilaa nin qayaadeed budeenu qaata taarto ogaada hasha colaada aan isku qaban oo xaway nabad haday ka okanto labadiinan magaalo haday ka okanto 9 kiiloomitir u jira waxaan qabaa in cid walba gaarsiinaysan waxaan aad uga mahad celinayaa oo aanan qarinayn odayaasha reer dhumay hawshii qabteen gudiga nabadgelyada markaan bahar sameeyay qayaada laascaad noogu timaado wallahi wana soo hadal qaadnay billaah ceelka biyaha laga cabayo baan mar labaad ku celin umadu ka cabaso ciidanku waa ka caagay ciidankii dambe ee taga taliyaha aagu wuxuu amar ku qabaa oo amar lagu siiyay inuu la dagaalamo amar ruusi hadda bas u sheega amar buu ku qabaa wuu la dagaalamaya qoriyuu ka dhigayaa wuu ka qaadaya hadii diidana waa lagu waxyeelaynaya hadda baytaan u sheegno kow qodobka u horeeya ceelka la yiraahdo Yaheel inuu ka caagan yahay ciidan ol ah oo u taga dibindaabiyo cidii tagtana talaabo sharci ah ay dawladdu ugu madax banaanta waa qodobka labaad waxaanu la qaadanay haddaanu reer dhumay iyo reer xidhnahay inaanu wada shaqayn joogto ah oo nabadgelyo raadinayno xiriirka joogtada ah ee nabadgelyo inaanu ka wada shaqayno aan isugu nimi labada deegaan ee dhumay iyo xidhxid dhexdooda anaga iyo maamulka iyo ciidamada taliyaasha ciidamada militariga iyo booliiska labadaba waxaanu isla qaadanay afar qodob ee dadku ka cabayo inuu ka caagan yahay wax ciidan la yiraahdo iyo qoriba waa isla qaadan ninkii lagu qabtana maamulka iyo odayaashu go'aan cad bay ka gaadheen kaas waa qodobka labaad waxaan isla qaadanay in wada shaqayn joogta maanta waxaan tagnaa ceelkii Yaheel maalintii way halkan dhibta ka dhacdo nin ka dhinto oo horeba way isu dilaysay laakiin ceelashii waa la wada cabi jiray
dhibta ceelkana idinkaa geystay oo bilaabay qoladii ku dambaysana saakaanu ka soo qaadnay ceelkaa wax biyo soo qaadanayo biyo cabaya ninoo arooraya oon qori sidanunbaa tegaya amar waxaanu ku qabnaa ciidan urursan haddaanu meel ugu tagno xabad ridaya inaynu qoryaha ka guro wixii ay xabada ku dhacaysa ay ku dhacdo aanu ku horgufno dhuumaha magaranaysa aanu wadanno waxbaanu idiin sheegaynaa waxaanu leenahay waa dad islaam oo caqli loo wax garanaya waa dad waxaad tidhaahdaan go'aaminaya war wax ha la kala qaato oo ha la kala dambeeyo waxa weliba meel baad noo marisaan waxbaan la qabanay waxa lagu nool yahay maanta waa biyaha biyuhu waa dhibaatada ugu weyn weyn maanta aynu ognahay oo dad iyo duunyo qof haan lagu waraabiyo mooyaan naf haan lagu waraabiyo mooyaane mid kale aanay jirin meeshii booyadu biyaha ka dhaaminaysay aadan askar maxamuud gurey telefishka caalamiga ee Somali News magaalada Laas